Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. This is the second part of intermediate course or an intermediate course, level 2. Our topic today is British UK vs American US. There are some differences between the British United Kingdom and American United States English. The British UK and American US English. Where does that differ from each other? For an example, British call the front of a car the bonnet, while Americans call it the hood. American students go to college, while British students go to university. Americans go on vacation, while British go on holidays. Here are some words: British UK, American US. Surname, last name, torch, flashlight, flatmate, roommate, flat, apartment, curtains, drapes. qaybtii labaad ama cashirkii labaad ee intermediate coursiga mowduuca annaga maanta wuxuu ka hadlayaa British oo loo yaqaano dadka luqadda u dhashay ah. United Kingdom, England is the country and English is their nationality marka la hayo jinsiyadooda. American waa dadka Mareykanka ayana sidoo kale luqadda ku weeliyo kula hadlo. US ayana lagu soo United States of America. There are waxaa jiro ama ahaaday some differences xoogaa farqiya between u dhaxeeyo the British UK and American US English. Ingiriisiga Britishka ay isticmaalaan iyo Englishka ay adeegsadaan dadka Mareykanka. What is erayada that differ from each other kuwaasoo ay ku kala duwan yihiin midba midka kale? What is that differ from each other midba midka kale ay ku kala duwan yihiin? For an example, tusaale markaan ka soo qaadano, British call dadka Ingiriisiga waxay ugu wacaan ama ay ugu yeeraan the front of a car, gaariga hortiisa qaybtiisa hore, the bonnet ee dhaan bonnet. Bonnet waxaa la yiraahdaa coverka gaariga, exactly meesha kore motorka dushiisa kora ah yaa bonnet la yiraahdaa. While meesha ama goorta Americans Mareykanka call it ay ugu yeeraan the hood bay dhaan Mareykanka. American students ardada Mareykanka go to college ay dhigtaan ama aadan college, while British students go to university ay jaamacad ka aadaan. Americans Mareykanku go waxa ay aadaan on vacation, waxa la yiraahdo dalxiis, sida fasax, shaqada free from work ay ka yihiin, that they are free from work, that they are not doing any work, free from work ay ka yihiin, shaqada ay ka madax bannaan yihiin ama fasax ay ka yihiin, vacation bay dhahaan bay aadaan. While British dadka Britishka ama Ingiriisiga go on holidays ay aadaan maalmaha fasax ay dhahaan. Here halkan marka waxa ah some words xoogaa eraya. The difference between British and American exactly. This is not the accent but the words exactly. Maahan tani dhawaqa laakiin waa erayada. Surname. British ka adeegsado. British people say surname. Americans say last name. Magaca ugu dambeeyo. First name, middle name, last name exactly. Surname, last name. Torch baa la yiri. Waa midka aan wada naqaano torch baan wada dhahnaa torch. Soomaali laftirkeeda torch bay yiraahdaan saa u malaynaa ama carbono baa loo garanayaa. Flashlight waa dadka Mareykanka dhaho. Flatmate British ka dhaho. Flatmate headaha marka flatmate waa qofka kula qolka ah, kula degan, qofka qolka kula degan
ayaa flatmate la yidhahdaa. qof baa isla degantihiin waa flatmate exactly. Roommate baa Maraykanka dhaha marka. Roommate. Flat waa qayb ka mid a guri dhismo weyn aad wada degantihiin. Flat. Apartment. That's what Americans say. Apartment. Flat. British people say flat. Apartment. Maraykanka dhaho. Curtains. Curtains waa daahyada. Heavy clothes exactly hang over a window. dharka aadka u culus ee la suro maalda exactly daaqada. waxaa yidhahdaa curtains ee dhan Britishka. Maraykan wuxuu yidhahdaa drapes. Drapes. Maraykan wuxuu yidhahdaa drapes.